وعن oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee idiinaha calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena duhurnimada waxaa kamid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka guuleysay dawladda Kenya kadib markii loo ogolaaday codsi ay dhawaan cusub dawladda Soomaaliya oo ahayd in ciidamada AMISOM ee dhawaan Soomaaliya la keeni doono laga saaro dawladda Kenya qaraarkan ee qaramada midoobay midowga Yurub iyo sidoo kale iyo midowga Afrika ay isla meel dhigeen ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dawladda Kenya kadib markii Soomaaliya loo ogolaaday in ciidamada Kenya kuwa hadda joogana laga saaro kuwa cusub ee AMISOM aan lagu soo darin Kenya oo markii hore ku hanjabaysay in ciidamadeeda ay kala baxayso Soomaaliya ayaa hadda calaacal iyo baryootan ugu jirta in dib loogu soo celiyo AMISOM ciidamada Kenya hadaba qaraarku qaab nooce ah ayuu u dhacay cid fududeysay dadaalka ugu xoogana oo madaxweyne Farmaajo ku bixiyay ayaa warbixinta daawada ku kula wadaagi doona dhinaca kale saraakiil ka socota dawladda Turkiga ayaa kulan kula qaadanaya madaxweyne Farmaajo magaalada Dooxa ee xarunta Qatar saraakiishaasi ayaana la sheegay inay yihiin kuwa ka socda madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan kuwaasi oo kulamo xasaasi ah la yeeshay madaxweyne Farmaajo arrimaha ay ka wada hadleen ayaana la sheegay in ugu horeeyaan doorashada iyo si dib loogu soo celin lahaa madaxweyne Farmaajo hirgelinta ballanqaadyadii iyo sidoo kale mashaariicda dawladda Turkiga tababaro cusub oo ciidamo qaar loo qaadayo iyo sidoo kale duuliyaal Soomaaliya leedahay oo doonayso dawladda Turkiga inay soo saarto heshiis ay wada saxiixdeen dawladda Turkiga Soomaaliya iyo Qatar iyadoo Qatar ay ka caawinayso Soomaaliya in ciidamada qarashadka ku bixi doona ee ayadu lacagtaasi bixin doonto ciidamo aan inaba caadi ahayn loo soo saaro Soomaaliya iyadoo tababarka lagu siinayo dalalka Raashiya iyo sidoo kale Turkiga warbixinteena ayaa daawada kula wadaagi doona dhinaca kale Axmed Madoobi oo si toos ah ugu xiibsiibtay basaasiinta reer Kenya kadib markii uu shalay sheegay inuu diidan yahay qaraarka dalka looga saarayo ciidamada Kenyaatiga ah Axmed Madoobi ayaana hadda sida xaqiiqada ah loo ogaaday inuu si toos ah u yahay basaas xogaha qaranka u gudbiya dawladda Kenya ee cadawga la Soomaaliya warbixinteena ayaa daawada kula wadaagi doona arrimaha doorashooyinka ee ugu dambeeyay iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo dhabarka u jeediyay dawladaha khariijka Kenya Djibouti iyo sidoo kale dalal badan oo Soomaaliya caqabad weyn ku ah doorashooyinka ugu dambeeyay ka dhacay deegaanada Galmudug xaaladda Somaliland dagaaladii Itoobiya waxaasi oo dhan barnaamijkeena ayaan ku qaadari doonaa hadaladii iyo dhacdooyinka ugu dambeeyay siyaasadda Ruushia sarkaal basaas oo ahaa dawladda Raashiya oo kamid ahaa madaxda ugu sareysa dalka Ukraine oo shalay lagu dilay dalkaasi isla Ukraine ay barnaamijkeena daawadayaal ku daawan doontaa hadii ay tahay marka koobaad aad soo booqato channelkeena calanka TV subscribe oo furo gambeelka si aad u dhaqso daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid aan ku bilaabay dawladda Soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne Farmaajo ayaa dharbaaxa ku dhuftay dawladda Kenya kadib markii ay ku guuleysatay in ciidamada Kenyaatiga ah ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya in laga saaro dalka madaxweyne Farmaajo iyo dawladdiisa ayaa waqti badan geliyay sidii ciidamada Kenya dalka looga saari lahaa ugu dambeyntii waa lagu guuleystay shalay ayayna qaraarkaasi qaramada midoobay midowga Yurub IGAD iyo sidoo kale midowga Afrika qaranka ku duugeen waxayna warbixinadu sheegayaan in dawladda Kenya ay aad uga xumaatay iyadoo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi uu codsi u diray qaramada midoobay beesha caalamka iyo guud ahaan hay'adaha Soomaaliya lugta ku leh ee taageera wuxuuna ka codsay in ciidamadiisa loo ogolaado inay ka howlgalaan Soomaaliya maadaama amnigooda ay u cabsanayaan dawladda Kenya ayaana dhowr jeer u hanjabtay dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo in ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee Kenyaatiga ah ay isaga bixi doonaan dalka haddii uu safarin qaadka oo ay dhawaan isku haysteen haddaba dharbaaxadan ayaa Kenya ku noqotay mid aysan ka soo waaqsanin maadaama ay ahayd in ay ka mid ahaadaan ciidamadii AMISOM tubo meel u suran oo si caadi ah isaga dhuuqi jireen haddaba guushan ay soo hoysay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayay shacabka Soomaaliyeed si aad ah u soo dhaweeyeen iyagoona uga mahadnaqay madaxweyne Farmaajo dagaaladii ugu dambeeyay ee dhaxmar Soomaaliya iyo Kenya ayaa mar walba waxay guush ku soo raacaysay dawladda Soomaaliya taas oo u muuqata inay gaarto Soomaaliya basayl siyaasadeed iyo sidoo kale qaangaarnimo aan inaba caadi ahayn marka loo fiiriyo go'aanadooda iyo tallaabooyinka ay qaadayaan dawladda Kenya waxay u muuqatay ama ay la ahayd in Soomaaliya aysan go'aankaasi ku fikiri karin marnaba balse hadda waxay ku qasbanaadeen inay muddo 3 bilood ah warartaan ciidamadooda iyo waxa laala wixii ka yaala dalka haddii markaas wixii ka dambeeya lagu sii arko gudaha dalkana waxa banaan ama se sharciga caalamiga uu ogol yahay in dawladda Soomaaliya ay si awood ah isaga saarto khilaaf xooggan ayaa ka dhaxeeyay sanadii u dambeeyay dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo sidoo kale Kenya ay garab kiireysay dalalka Soomaaliya waliba ay walaalo gooni ayiin waa dalka Djibouti iyo walow markii dambe ay kala xarig goosteen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle
ay qaar ka mid ah dalalka khaliijka isku dayeen inay inqilaabaan oo sidoo kale xukun kala wareegaan taas oo keentay inuu heshiis la galo madaxweyne Farmaajo oo khilaafaadka ka dhaxeeyay ee shakhsiga ahaa sida lagu soo dhameeyo. dhinaca kale Axmed Madoobe ayaa isna isu bedelay basaas Kenyaati ah kadib markii uu shaqada u hayay qaranka iyo sidoo kale dadka reer Jubbaland uu ku bedelay inuu u shaqeeyo dadka reer Kenya. Axmed Madoobe ayaa shalay ka xumaaday qaraarka ay soo saartay qaramada midoobay midowga Yurub beesha caalamka sidoo kale African Union iyo maamul goboleedka IGAD iyo urur goboleedka IGAD. haddaba Axmed Madoobe ayaa hadalkiisa laga dheehan karay inuu ka xumaaday in Kenya ciidamadeeda laga saaro dalka isagoo sheegay in Kenya ay leedahay qayb ka mid ah Soomaaliya aysan ka bixi karin ciidan hub kharash inta uu ka galay. Axmed Madoobe oo si toos ah u muuqday inuu la safan yahay dowladda Kenya ayay ku gacan saareen dowladahaasi iyo sidoo kale dalalka taageera ee deeq-bixiyaasha ah Soomaaliyana gacanta ku haya. Axmed Madoobe wuxuu shaqadiisa waqtigiisa inta badan ku bixiyaa inuu u basaaso sida la sheegay xogaha Soomaaliya iyo siraha qaranka dowladaha shisheeye ee u horeysa dowladda Kenya. haddaba dadka reer Jubbaland ayaa arrintaasi si aad ah ugu xumaaday oo walaac ka muujinaya xaaladda sarkaalka ama madaxweynaha ugu sareeya maamulkooda. dhinaca kale saraakiil ka socota dowladda Turkiga ayaa kulan kula qaadanaya madaxweyne Farmaajo magaalada Dooxa ee Qatar. kulankan ayaa la sheegay salka inuu ku hayo heshiis saddex geesood ay galayaan dowladaha Soomaaliya, Qatar iyo sidoo kale dowladda Turkiga. saraakiil ugu horeeya wasiirka arrimaha dibadda ayaa yimid dalka Qatar gaar ahaan magaalada Dooxa uu ku sugan yahay madaxweyne Farmaajo iyadoo kulanku ilaa hadda socdo. heshiiska Soomaaliya waxa uu saxiixay wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale madaxweyne Farmaajo wuxuu arrinta ka noqonayaa ama ka ahaan doona korjoogto oo xaaladda ayuu la socon doona. waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in ciidamada hadda kadib ay tababarada caalamiga la sii doono dowladda Turkiga iyo Russia dhaqaalaha ku baxaya inay bixinayso dowladda Qatar oo mar walba Soomaaliya la garab taagan hil iyo hoob. dhinaca kale ciidamo cusub oo Soomaaliya loo qaadayo iyo wada hadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo sida madaxweyne Farmaajo dib loogu soo celin lahaa ayaa laga wada hadlay. kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa yimid kadib markii madaxweyne Farmaajo uu kulan ku tagay magaalada Dooxa ee dalka Qatar si uu dalkaasi u helo taageero maadaama mucaaradka qaarkood ay ka helayaan taageero dalalka khaliijka carabta si ay u burburiyaan Soomaaliya. la taliyaasha madaxweyne Farmaajo ayaa ku wargeliyay inay tahay laga maarmaan in madaxweyne Farmaajo uu raadsado dhaqaale si uu isaga difaaco dalalkaasi dhaqaalaha ku soo weeraray maadaama ay tahay arrintaasi mid laga maarmaan ah. dowladaha reer galbeedka qaarkood khaliijka Kenya, Djibouti iyo wadamo badan oo aad u fara badan ayaa isku dayaya in madaxweyne Farmaajo xukunka ka tuuraan si Soomaaliya aysan heer u gaarin meel la isu tagin. waana sababta keentay in madaxweyne Farmaajo uu caawinaad iyo taageero ka dalbado dowladaha Turkiga iyo sidoo kale Qatar oo taageero nadiif ah oo caad u muuqata siya ciidamada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. dalalka Sacuudi Carabiya, Bahrain iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta, Kenya ayaa laf dhungasho ku noqday qaar ka mid ah horumarka ka soconaya gudaha dalka iyagoona adeegsanaya siyaasiyiinta calooshood u shaqaystayaasha ah ee madaxda ka ah maamulada qaar. balse arrintan ayaa soo gabagabeynaysa markii madaxweyne Farmaajo uu taageero ka helay weliba taageero buuxa dowladaha Turkiga iyo sidoo kale dowladda Qatar gaar ahaan xukuumadda Dooxa. haddaba madaxweyne Farmaajo ayaa la rajeynayaa inuu la soo laabto heshiisyo waaweyn oo dhaxalgal ah oo dalka u horseedi doono horumar iyo sidoo kale barwaaqo. waxaan ilaahay ka rajeynaynaa in dalka meel fiican uu ilaahay ku jeeyo. haddaba halkaa waxaa inooga wararkeena doorimo haddii ay tahay marka koobaad oo soo boqotay channelkeena Calanka TV subscribe oo furgan bilaalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena.